وبرنامج كلمة تمنادي برنامج الذي تحناها يعني كجهل لنا تاريخ الصومالية. aan ku bilaabay kadib markii ay meel mari weyday taladii ruushka ahayd in arrinta xagga dhulka ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhex taala aan dagaal lagu dhamaynin ee si kale looga wareego oo ahayd in federation ay samaystaan xiriirkii u dhaxeeyay midowga Soviet iyo Soomaaliya meel xun u marayo ayaa dabayaaqadii bishii September sanadkii 1977 waxa ruushku ay bilaabeen in si xoog ah dayuurado Itoobiya ay ugu soo daadgureeyaan hub fara badan waqtiyadaasi waxa ciidamadii Soomaalida oo huwana magaca jabhadii loo oran jiray WSLF ay qabsadeen magaalada Jigjiga warada ciidamada Soomaalidu ay Itoobiya ku qaadeen waxay ahaayeen qaasi dhaxsale u socday oo guushu ay ahayd marka laga soo bilaabo goday mid aan hakanin waxa isla markaasi si xoogobay iskaashigii dhexmarayay Soomaalida iyo qoomiyadihii kale ee Itoobiyaanka markaasi ka soo horjeedo ay kamid ahaayeen caruusaha iyo oromada degan Baali iyo Harar waxaana waqtigaasi la sameeyay jabhadii iyadana la oran jiray Somali Abo Liberation Front iyadoo isla markaasna waqtiyadaasi ay soo baxeen ereyadii Somali Warrior iyo Somali Abo October 18 1977 ayaa kooxda la dagaalanka argagixisada ee dalkii la oran jiray Jarmalka galbeed ayaa waxa ay ku guuleysteen inay furtaan dayuurada ay lahayd shirkadda Lufthansa ee Jarmalka oo kooxdii la oran jiray Baader-Meinhof ay soo qafaalatay oo ay la tageen Muqdisho ugu dambeyntii markii ay meelo badan soo mareen Soomaalidu gacantii ay arintaasi ka siisay Jarmalka inay u meel marto ayaa waxa raja ay ku gashay inay u soo joogsan doonaan reer galbeedku danjirihii waqtigaasi Soomaaliya u fadhiyay Jarmalka ayaa waxa uu ahaa Yuusuf Aadan Bookax Yuusuf oo imika Jarmalka degan ayaa waxa aan weydiinay bal sida uu u bilaabmay xiriirkii arintaasi diyaaradda ay ka yeesheen Soomaaliya iyo Jarmalkii galbeed markii arinta dayuuradu ay dhacday sida aad ula socotaan ayaa sida aad u sheegtay raja gashay Soomaalida in wax la qaban doono ama Jarmalku uu caawin doono inkastoo ay markaa dagaal ku jirnay xaqii wax ka tarka muxuu ahaa ama hub haato ama wax kale hub u dhigma haatee way ka yara fogaadeen ma ay jaalaysan laakiin waxyaabo kale oo muxuu ahaa xagga dhaqaalaha ah ayaad moodaa inay u leexdeen iyo ragii un markaa muxuu ahaa soo dagaalamay oo dad badan la keenay halkan oo dagaalkii wax ku noqday oo ay daweeyeen dhinacaas ay ka doorteen laakiin dhinacii hubka wax qarsoodiye mooyaane wax kale oo aanan u ogahay oo ay doorteen oo jiray ma jirin maxay ahayn Yuusuf markaana intay waxa kale diyaar ka waan xagga dhaqaalaha marka la eego ee Jarmalku ay doonayeen Soomaalida siiyaan waxa ii yeeray markii hore wasiirka arrimaha dibadda ee Ganshar baa ii yeeray isaga warka ay sheegay oo yiri dayuuradu caynka weeyaan saasa dhibaatadaas naga haysata waxaan jecelahay bal inay horta degto oo muxuu ahaa markii adigu dayuuradu ay degtay waxa haddana ka daba tagay nin la yiraahdo Benfish oo Jarmala oo wasiir ah xafiiska muxuu ahaa madaxweynahana jooga oo trouble shooter bay yiraahdaan gaaladu ninkii uu kolkaa wixii dhibaato ee dhaca ninka u baadi doonay xalila ninkaas adeena xamar loo diray inta ka bacdigeed waxa ii yeeray prime ministerka dawladda Jarmalka aniga ii yeeray wuxuu igu yeeray inuu dadka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeed baan u soo mahadnaqayaa buu dad badan uu ka haysan lahaa sidaan warka ku qabo khubara ah ama dhaqaale xageeda ha ku ahaato ama si kale ba ha ahaatee dad khubara ah oo badan baa raacay lahaa marka arintii markii aan gaarsiiyay wasaaradeedii waxa la yiri waxa hore aan u lahayn safar aan ku soo marayno Italy iyo France marka taasaan ku daraynaa bay yiraahdeen waxaan idhi ha ku darina laba arrimood oo isku mid ah ma aha aniga waxay la tahay tan hore u lahaydeen ina gooni u wadaan booqashada muxuu ahaa odaygana ina ka aqbashaan oo waa ku sugtaan ama marka hore haato ama marka dambe haatee waa la igu diido waxa la yiri waa iskaga mid baa laga dhigayaa waa la soo marayaa halkaas muxuu ahaa warkii ku dhamaaday ma uu tagin odaygii prime ministerka ahaa ee codsaday inuu tago Soomaaliya oo dadka Soomaaliya u soo maadnoqo ma jireen marka Jarmalka dhinacoodu waxyaabo ay diyaariyeen oo ay doonayeen ama mashaariic ahaato ama dhaqaale kala ahaato oo ay doonayeen dalka ku caawiyaan waa jirtay waxyaabo badan baa jiray hatta waxa jirtay in masalan beeraha oo ay Soomaalidu muxuu ahaa caan ku ahayd in ay muxuu ahaa wax ka caawiyaan iyo wixii laga caawin lahaa Soomaalidu markaa sheegan lahayd
kaasi wuxuu ahaa danjirihii Soomaaliya ka fadhiyay waddankaasi Jarmalka Yusuf Aadan Boka. bishii November sanadkii 1977 ayaa dawladda Soomaalidu go'aan ku gaadhay inay cadaystaan mowqifkooda ku saabsanaa dhinaca Ruushka iyo xulafadoodii dhinaca Ethiopia. habeenkii go'aankaasi golahii dhexe xisbigu uu gaadhay waxa raadiyowga magaalada Muqdisho ka sheegay wasiirkii warfaafinta ee waqtigaasi Cabdulqaasim Salaad Xasan. isagii ayaa nimanka idinku wareejin doonaa oo inoo sheegi doona sidii go'aankaasi lagu gaadhay iyo qodobadiisi waxa ay ahaayeen. markii la ogaaday ciidamada Kuubaanka ah iyo isbahaysiga Soviyeetku hogaaminayo iyo hubka xaddaafka ah oo lagu soo qulqulinayo Ethiopia waxaa dhacday in golihii dhexe ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed uu soo saaray go'aamo ku saabsanaa arrintaas. golaha dhexe wuxuu ka dooday tillaabooyinka la gudboon Soomaaliya inay ka qaado dawladaha gurmadkaas isu soo kaashaday oo midowga Soviyeet hormuudka u ahaa. qaar ka mid ah xubnaha goluhu waxay soo jeediyeen in xiriirka diblomaasiga ah loo gooyo dawladaha ay ka mid yihiin midowga Soviyeetiga, Kuuba, Jarmalka bari iyo Yemenka koonfur intaba. qolo kalena waxay qabtay inaan tillaabooyinkaas isku mar la wada qaadin oo aan laga wada qaadin dawladahaas oo dhan, balse horta lagu kaaftoomo in dawladda Kuuba xiriirka loo gooyo. midowga Soviyeetigana khubaradiisa military iyo tan rayidka aba laga saaro dalka. waxaa kale oo la istusaalay in Soviyeetigu ku xadgudbay heshiiskii kala dhaxeeyay Soomaaliya oo 1974 ay labada dal wada galeen markii uu Soviyeetigu hubka iyo ciidankaba ku taageeray maamulkii Mengistu Haile Mariam. doodaas dheer dabadeed ayaa golaha dhexe xisbigu soo saaray go'aanka qodobadiisu yihiin kuwan soo socda. 1 laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa buray lana joojiyay ku dhaqanka qodobadiisa heshiiskii saaxiibtinimada iyo iskaashiga oo dhex maray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed iyo dawladda midowga Soviyeeti sanadkii 1974. 2 laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa la joojiyay dhammaan wixii tashiilaad ahaa oo badda, cirka iyo dhulkaba lahaa oo Soomaaliya u fidin jirtay ciidamada qalabka sida ee midowga Soviyeetiga. 3 khubarada ciidamada iyo tan rayidka ah oo dalka midowga Soviyeeti ka joogta Soomaaliya waxay kaga baxayaan dalka muddo 7 maalmood ku siman. 4 dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya waxay warsatay tan midowga Soviyeeti inay yareyso diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaraddeeda iyo laamaheeda ka jooga Soomaaliya lana gaarsiiyo tiradooda mid u dhiganta tan kuwa Soomaalida ah ee jooga Soviyeetka. 5 golaha dhexe markuu arkay faragelinta dawladda Kuuba oo u soo dirtay gobolka Geeska Afrika in ka badan 15,000 oo ciidamadeeda ah oo lagu taageerayo xukunka Ethiopia, wuxuu go'aamiyay in loo jaro dalka Kuuba xiriirkii diblomaasiga ahaa oo ay la lahayd Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya. 6 goluhu wuxuu amray inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood dhammaan diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo khubarada Kuuba. go'aanku saas uu ahaa qodobadaas uu ka koobnaa xoogiisu. kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaasim Salaad Xasan. inkastoo haddaba Soomaaliya ay saartay ilaa 6,000 oo khubaro Ruush ah, waxaa jirta in dalka Suudaan uu isku dayo inuu kala taliyo Soomaaliya inaanay Ruushka saarin ka hor intii aan go'aanka la gaadhin, isagoo u cuskanayay dhibaatada taas u yeelatay iyaga markii talabadaasi oo kale ay qaadeen. talabadaasi waxaa dawladdii Suudaan ee Numeru madaxda ka ay gaarsiisay wakiilkii militariga Soomaalida u fadhiyay Suudaan ee markaa joogay magaalada Khartoum oo ahaa Xuseen Saalax Muuse. isagii ayaa inoo sheegi doona sida warkaasi uu ku soo gaadhay iyo wixii uu ku dhaqaaqay. anigu bixitaanka Ruushka waxaan ku ogaaday anoo Suudaan jooga oo madax askari ka ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah ay tahay markaa 25kii bay ahayd bisha September. marka anigu habeenka cashan ku maqnaay raay safaaradda maartay meeshii Ammaan intaan guriga ka maqnaa ayaa waxa ii soo weedeertay guriga oo yimi wasiirka gaashaandhigga ee Suudaan markaas oo loo jeeday Maxamed Ali Bashiir, Lieutenant General Maxamed Ali Bashiir. markaa guriga ku soo laabtay 9kii oo waxala meelahaas
ayaa xaasku ii joogto waxay ku tidhi wasiirkii suudaanti maxamed cali bashiir ayaa intaad maqlid guriga yimi wuxuuna ku yidhi haddayd bixi lahayd hayga bixin waa kusoo noqonayaa wasiirka adigu 15 daqiiqo kadib ayuu soo labtay keligii isagoo baabuurkiisa Mercedes-ka wata waanu salaam markaa wuxuu yidhi kan waan ku rabaa magaalada Khartoum baanu wareegnay runtii markaas wuxuu arrin maartay meeshii degdega ayaan ku doonayay arrintaasana doonayay maartay meeshii dawladdiina inay gudbiso markaas arrintu waa maxay markaa wuxuu yidhi fiidkii hore waxaan ka soo kacay yidhi shir uu lahaa golaha difaaca ee Suudaan shir uu lahaa ayaan ka qayb galay buu yidhi shirkana wuxuu gudoominayay buu yidhi madaxweynaha Maxamed Jacfar Numeeri markaa waxaanu isku raacnay fariin aanu helay inaanu Soomaaliya u gudbino sida darteedna maartay meeshii military tajeba tahay aan arrinta adiga ku sheego arrintu waa maxay baan markaa wuxuu igu yidhi mulka askariga ee jooga maartay meeshii Mareykan waxaanu ka helay buu yidhi war sheegaya in Soomaaliya ay damacsan tahay Ruushka inay saarto warkaasna markaanu sii daba galay mulka askariga Masrigana waanu ka helay ninka Masriga marka mulka askariga Mareykanka waxa loo jiray Abdulxaliim Abu Ghazala markii dambe wuxuu noqday wasiirka gaashaandhigga ee Masar warkaas wuxuu sheegayaa buu yidhi Soomaaliya inay doonayso Ruushka inay saarto marka taasaan idin ka digayna arrintaasaan idin ka digayna ka digno ayaan kugu imi buu yidhi waxaan ku sheegayaa buu yidhi laba dal waanu ka midnahay aniga Suudaan iyo Masar ayaa ilaa hadda Ruush saaray buu yidhi Masar waxa ka ilaa 17,000 oo Ruusha annaguna 3,000 baa naga baxay laakiin labadayadiiba maanta waxaan khasaare ahayn kama hayno marka waxaan ku leeyahay inaynu ku idin digno aan lahay khasaarihii ku dhacay Masar ama Suudaan ku dhacay Soomaaliya ku dhicin waxaan markaa ku leeyahay buu yidhi in dawladdu ogeysiiso Soomaaliya inay haddii ay saaraysaa Ruushka waa inay qoraal cad ka haystaan Mareykanka iyo shuruud ay Mareykanka la galaan haddii aanay taahayn dagaalka ay ku jirtaan waa ku jabaysaane aynka sameeyna digniinta aynkaasa ayuu maartay meeshii wasiirku ii sheegay waxa sababta markaa nala joogo safiirka ahaa Maxamuud Xaaji Nuur gurigiisaan ugu tegay ilaa 10 iyo barkii arrintii baanu sheegay maanu fadhiisanay markii baanu maartay intii wasiirku noo sheegay safaaradii baanu furanay intii baanu qoraal ka dhignay waxaanu markaa goosanay labadayaduba Italia maalinta waxay salaasada berri dhoofaysa ilaa inaan raaco oo warkaan dalkii geeyo sidii baanu yeelo maartay consulka Talyaaniga ee ayaa gacan siiyay dawladda Italia saasaaro nimadii ku raacay waxaan ka degay xamar markaa kadib wasaaradda gaashaandhigga aan tegay wasiirka gaashaandhigga Maxamed Cali Samatar ayaan arrintii u geeyay wuxuu yidhi 3 maalmood sug jawaabaan ku soo celinaynaa waan sugay 3 maalmood kadib markaas uu yidhi iska noqo arrintii maartay meeshii anaga dhamaystirayna taa waxay xigtay bishii November dhammaadkeedii anoo Khartoum markaa ku soo laabtay oo la yidhi Soomaaliya Ruushkii way saartay waxaan markaa gadaal ka ogaaday mar dambena inaan wax shuruud ah fariintii aanu geynay ee Suudaan noo sheegtay inaan wax allaale wax laga qabtay aan jirin ay noqday hal bacaad lagu lisay Soomaaliya iyadu wax allaale wax shuruud cadaana oo heshiis Amerikaan ay la gelin inay maartay meeshii Ruushkii dibadda u saartay taasuna khasaarihii la ogaay ballaadna ay runtii keen markii dambe Soomaaliya haddaba saaxiib la'aan ayay ku soo dhacday waqtigaasi Mareykanka iyo Britain-ba waxa ay mashquul ku ahaayeen wadahadaladii Rhodesia oo aad u jilicsanaa labadoodu waxa isku dayeen inaanay faquuqin ururka midnimada Afrika fikradda ay qabeenna waxay ahayd in khilaafka dhuleed ee dhex yaalla Itoobiya iyo Soomaaliya loogu dhameeyo Afrikaan ahaan go'aanka Afrikana waxa uu ahaa kii la gaaray xilligii la sameeyay OAU-da oo ahaa inaan waxba laga bedelin sohdimaha Afrika sidii gumaysigu kaga tagay haddaba bishii February sanadkii 1978 ayaa rasmi ahaan Soomaaliya u gashay dagaalkii markii hore lagu sheegayay in ay ku jirto jabhadda WSLF kadib markii si xoog ah loo garaacay ciidamo Soomaalidu ay leedahay oo dhammaa ilaa 8,000 oo ka dagaalamay inta dhaxaysa Jigjiga iyo Harar ayaa taangiyo ay wadaan ciidamo Kuubaan oo diyaarada lagu qaaday oo la dhigay meel ka dambaysa ciidamada Soomaalida waxa kale oo iyagana la hawlgeliyay diyuurada miyiga oo ay Kuubaan ku wadaan oo waliba lagu xoojiyay hub cusub oo casri ah oo Ruushku uu keenay warka qaarkood waxa ay sheegayaan in ninkii hore madaxda uga ahaa ergada xagga militariga ee Ruushka ka fadhiday dalka Soomaaliya oo loo oran jiray isaga General Grigori Barslov uu isagu hogaaminayay dagaalka Soomaalida lagu soo qaaday madaxweynaha dalka Cuba Fidel Castro mar wax laga weydiiyay
sida iyaga iyo midowda sofiyeetku ay isaga kaashadeen dagaalkaasi ee soomaalida lagu qaaday ee Ethiopia loogu heliyay waxa uu yidhi It was the only operation we conducted in full agreement with the Soviets. De común acuerdo los soviéticos. No such cooperation took place. Fidel Castro waxa uu yidhi waxa uu howlgalkaasi military ee aanu wada galay ahaa ka keliya ee annaga oo si buuxda isugu waafaqsan aanu wada galay dalkii midowda Sofiyeetka la odhan jiray ma jirin wax iskaashi oo sidaas oo kala ah oo na dhex maray annaga iyo midowda Sofiyeetka oo ka dhacay xataa marka la eego wadamada la yiraahdo Latin America sarkaal ruusha oo isaguna ka mid ahaa ergadii ka fadhiday magaalada Addis dalkaasi Ethiopia dhinaca midowda Sofiyeetka oo ka warramaya dagaalkaas sida uu dhacay waxa isna uu yidhi Kubinskие войска в Эфиопии. The Cuban troops in Ethiopia played a very important role. Потому что waxa uu yidhi ciidamada kuubaanku door aad muhiim u ah ayaa dagaalka ay ka ciyaareen Etoobiyaanku keligood may samayn kareen maamulka dagaal ee lagu burburiyay ciidamadii Soomaalida muddo sidaas u kooban xataa gacanta aanu siinaynay haddii lagu daro markaasi annagu military ahaan waxaanu dhexdayada ka fikirnay in aanu qabsano Soomaaliya laakiin dawladda midowga Sofiyeeti sax ayay ku ahayd inaanay taano fasaxin waayo xiriirka aanu la lahayn dalalka sida Mareykanka iyo Britain iyo qaar kale ayaa sii xumaan lahaa haddaba dhegaystayaal inkasta oo Soomaaliya laga hiilay haddana xilladii dagaalku uu socday waxa soo baxayay warar sheegeen ciidamada Soomaalida la fahantoodu ay sasuuldaareen arrintaasi sida wax uga jiraan waxaan wax ka weydiinay General Glal oo ka mid ahaa raggii dagaalka hogaaminayay generaalku waxa uu ku jawaabay su'aashaas waa su'aal important ah welina Soomaalidu kama sheekaysan dhibaato jirtay waxa weeye horta ninkii Maxamed Siyaad dhihi jiray wuxuu balaayo ku dhigay dadkii oo dagaalka u diray ma aaminay wuxuu weligii ka soo horjeeday in dhagaha Soomaaliyeed uu ku dhaco magac wax fiican keenay oo aan asaga magaciisa aan ahayn nin Soomaali oo hebel la yiraahdo guul keenay oo guulwada Siyaad guulwada hebel lagu lamaaniyo la garab dhigo arrintaas uu ka dagaalamay Maxamed Siyaad aad iyo aad buu uga dagaalamay dadkii uu dirsaday ee uu rabay inuu guusha ku keeno oo himiladii Soomaaliyeed uu rabay runtii ayuu haddana ciladaas soo baxday ama hebel iyo inta la maqlo dad kale lagu garab dhigaahayba ay meesha soo baxaan marka wax walba uu fashil asaga fashilinay maxaa tusaale ahaan mesela aad soo qaadi kartaa adigu mesela intii hogaanka xagga dagaalka aad waday dagaal ku jirtay waxyaabihii dhibaatooyinka ay hawshaadii lagu curyaamay maxaa kamid ah marka meel la aadayo ciidan baa loo qoodeeyaa la yiraahdo intaas ciidan intaas oo saas iyo saas meeshas galaya la yiraahdaa ciidankii uu nus reebanaya markii la dhaqaaqo ayuu nus reebanaya dayuuradii uu reebanaya wuxuu reebanaya madaaficdii uu reebanaya midda kale meesha ka dhacaysay markaad rasaas nooca dalbato ayaa nooc kale lagu keenaya markaad shidaal nooca dalbato ayaa nooc kale lagu keenaya aadan waxa aan ku sii cadeeyay markii anigii oo qoonkii iga korreeyay markaan isku qabanay dagaalkii saan la yeelo aniga waa la iga soo waday maalin aamin inagoo joogna ayaa meeshii aan ka imin la soo jabsaday Maxamed Siyaad baana la jooga markaas warsee la yeelayay asaas markii naloo sheegay ayaa eri war frontiga waqooyi hadii la soo jabsaday frontigan southka meeshaan filto iyo dhinaca nagayla xagiisa oo aan waxba laga qaban ayaa ciidankaas aan dhaqaajino oo aan daf siino oo nagayla ka duso oo shashamane ha galo oo harooyinka halkaas oo ardisoo lafteeda qatar ha geliyo markaasuu inta ifiiriyo wariya galaal ma waxaad rabtaa niman Maxamed Siyaad ahayn magaciisa inuu soo baxo macnaha halkaas Cabdullaah Yuusuf baa joogay oo isaguna si gaar ah u shaqeynayo alliye on Allah aan ogahay sida waliba aan dadku ogeyn ayuu yiri war ma waxaad rabtaa in magaca Maxamed Siyaad magacaan ahayn inuu soo baxo maanta markaas ayaa waxa ii yeeray gambaneelihii ii yeeray wixii nala ku sameyn jiro dhan iyo waxay ahaayeen waxa ay meeshan dagaalkii baa lagu jiraa ninkan hadda waa ninka aaminto diratay ciidanku sidii loo badbaadiyo waqooyi loo qabsan aanu halka ku dhifano haddaad asaga diidaysa nin kale aan ku darno markaas aniga waa isugu qaymid nin hebel la yiraahdo isugu qaymid alla igu oginaano been sheegay intaas ayaan dhegaystayaal maantana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii